waxaan bogaadinaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee 30 sano kadib ku fikirtay in la sameeyo Somali Trade Show ama bandhig ganacsi ee Soomaaliya ay leedahay ma aha wax cusub waxaa la bilaabay waqtigii isticmaalka uu joogay wadanka ama waqtigii oo xukunkii Fudushaari Talyaani aan ku jirnay ilaa dawladdii shibilka ahayd waxaa lagu dhigi jiray carwada oo ganacsiga meel tan ku dhagan Exfiare tiyaatarkii ku dhaganta Exfiare la yiraahdo kacaankina wuxuu dhisay carwada markay dadka qaadi weysay magaalada fiday waxaa la dhisay carwada weyn oo ku taal degmada Hodan oo loo soo wareejiyay ganacsi carwooyinka ganacsiga waa kuwa loogu talagalay qof kasta badeecadeeda ku soo bandhigto waxa aad haysid haddii aan la ogaan meesha ay ku yaaliin ama aadan geyn carwooyin caalamka oo dhan waxa aad u baahan tahay aad ku arkaysid ummadda kale waxa ay haystaan aad ku arkaysid haddaada waxaaga muujiyo qofka iibsanayso ama ogaanaysa ma jirto carwooyin badan oo caalami aan ka qayb galnay marar badan oo aan geynaa anuguna wadamada kale waxyaabaha ay soo saaraan anagu waxaan geey jirnay kuwa hore ugu horreeyay waqtiga isticmaalka muuska kamid ah khudaarta kamid ah dhagxaan oo leenahay dhulkeena laga helaa farshaxankeena dharka aan sameeyno iyo maqaarta oo xayawaanaadka duurjoogta ah geesahooda iyo waxyaabaha khayraadka oo dhan laga heli karo si dadka maal gashana ama dadka u baahan aan haysan ee ugu arkaan carwada si fudud oo gurigooda aad ugu geyso badeecadaada waxaan soo dhaweynaynaa mar kale in 30 sano kadib aan ku fikirnay ganacsigeena ama ganacsatadeenu inay soo bandhigaan waxa ay hayaan ay rabaan inay la wadaagaan adduunka waxa ay u qabtaan bulshada inay soo bandhigaan si bulshadana u ogaato inay jiraan waxyaabo qiimo leh oo wadanka laga soo saaro service qiimo leh oo wadanka loo qabto oo dad aan ogeyn ay ogaa karaan aadaan u bogaadinaa oo soo dhaweynaa dhalinyarada isku dayda inay samayso Somali Trade Show-gan insha Allah anaga intii waqtigaas nool baa ka qayb gali doonaa waa mahadsantiin